salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal halkani waa raadiyoga codka gobolka Gadow kuna soo dhawaada war wixii daafaha caalamka naga soo gaaray warkana waxaa idila socodsiin doona anigoo Nuurdiin Xasan Deeq qodobada warka aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah munaasabad shahaadooyin dhar buugaag iyo qalimaan lagu guddoonsiiyay ardayda ku baastay imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka 8aad iyo kuwa iminka imtixaanka qaadan doona ayaa lagu qabtay dugsiga hoose dhexe ee degmada Dalow Soomaaliya booliska koonfur galbeed Soomaaliya oo degniin adag u jeediyay dadka aado al-shabaab dagaal xoogan oo ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dowladda Qatar oo mashaariic ka hirgelinaysa Hiirshabeelle qaramada midoobay oo ka hadashay xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Dadaab qodobada dibaddana waxaa kamid ah dadka qayb galay mudaharaad ka dhacay Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka oo la xiray haatan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku bilaabay munaasabad shahaadooyin dhar iyo buugaag iyo qalimaan lagu guddoonsiiyay ardayda ku baastay imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka 8aad iminka imtixaanka qaadan doona ayaa lagu qabtay dugsiga hoose dhexe ee degmada Dalow Soomaaliya warkaasi waxay inoo hayo waryaheena Cabdinuur Cismaan Cabdi munaasabadani oo lagu qabtay dugsiga hoose dhexe ee degmada Dalow Soomaaliya ayaa waxaa shahaadooyin dhar buugaag iyo qalimaan lagu guddoonsiiyay ardaydii gashay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe oo ay qaaday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale ardayda kale oo iminka u gudubtay fasalka 8aad hadiyadahan isugu jiray dharka lagu aado iskuulka buugaagta qalimaanta ayaa waxa ay ka timid walaalo qurbo joogaha u dhalatay degmada Dalow iyo kuwa kale halka ay munaasabadani ka dhacaysay ayaa waxaa goobjoog ahaa arday macallimiin waalidiin maamulaha dugsiga sare ee degmada Dalow qurbo joog u dhalatay deegaanka gudoomiyaha guddiga waxbarashada ee degmada Dalow iyo martaraf kale Farxaan Barre Cabdulle maamulaha dugsiga sare ee degmada Dalow Soomaaliya iyo gudoomiyaha guddiga waxbarashada ee magaalada Dalow Cabdi Cali Maxamed ayaa ka mahad celiyay agabka waxbarasho ee walaalaha qurbo joogta ee Mareykanka iyo Canada ay soo gaarsiiyeen ardayda waxbarata ee degmada Dalow Primary School oo ay ka timid 19 canug Qansaxley Primary School oo 45 canug ay ka timid iyo meesha la yiraahdo Qansaxley oo ay 25 canug ka timid imtixaanka shalay soo dhacay waa qaab electronic canug walba isaga fiirsanaya mobilkiisu ka fiirsanaya ama macalinka u fiirinayo dhacay maxaa baasay wili anagu maana raadinin laakiin waxaan kaliya inaan maanta halkan ka guddoonsiino ardayda hore u qaadatay oo shahaadooyinkooda oo hadda u yimid oo shahaadooyinkooda aan siinayno iyo uniformkii loogu talagalay ardayda sanadkan soo xaroonaysa secondary-ga oo halkan yaala ma rabnaa sanad hadda inaan guddoonsiino waxaan aad iyo aad ugu mahadsan gabdhaha ayaga waad aragtaan hadda inay halka fadhiyaan waxay rabaan haddana mar labaad inay la qaybtaan waqti la qaataan ardayda masaakiimaha qaxootiyaasha ka kala yimid Qansaxley iyo maarta kabaadse ka kala yimid magaalada dhexdeeda ka yimid in ay tusaan iftiinka waxbarashada inay tusaan ardayda kalena ay ku daydaan ay u sheegaan maanta laga bilaabay inaan waxbarasho dugsi sare la'aan inaysan degmada ka jirin oo degmada maanta dugsi sare leedahay dugsigaas sare oo ardayda lacag laga qaadaynin uniformkooda loo iibinayo buugtooda la siinayo waxaan maanta isugu nimid inaan dhiirigelino ardaydii imtixaanka qaadatay aydka sanadkii 2019 oo imtixaankoodii ku soo baasay siday ugu gudbaan iskuulkii secondary-ga ahaa ilaahay ayaa ku mahadsan arrinta iyada sama waxa ku mahadsan gabdhaha walaalaheena oo qayb weyn ka qaatay secondary horta in la helabo secondary-ga la aadi la in la helo waxa qayb weyn ka qaatay gabdhahaas qurbaha aad u kiciyay barnaamijka haddana ugu deeqa dadka uniformkii buugaagtii inay xataa fiigii wax ka bixiyaan marka farxad ayay noo tahay Dalow oo sanadkii hore wixii ka horreeyay aan imtixaan ba fadhiisan shahaadiya ardaydooda lixaad ku ekayd
ilaahay ayaa ku mahadsan waxa kale ku mahadsan dadka walaalaha ee qurbaha ka yimid iyo kuwa jiro iyo kuwa gudaha joogo ee sakaashaday. Aamina Isaaq Xuseen oo kamid ah waalidiinta xafladda ka soo qayb gashay ayaa tixgabaya ku saabsan muhiimadda waxbarashada ay leedahay halkaas ka tirisay. waxbarashaas asle bilow iyo hingad leh xaraf kasta bidhaan leh daruus bandhig leh baqiyo sharaxaad leh basar wax la baro macalinkaad ka bogata u barata ma aqoon beeralaydiyo beeraha biologigu waa noola barasho halbeega chemistry physics bahla wadaag sayniska lagu bartaa badda dhexdeeda bariga macdanta taal hawada loo baxay baas ku yeelo karaadku ha bislaado baro adna ha baajin baahi aqoonta bulsho yahay baraaruga cilmiga bartaa ha baabi'ee jahliga intaasaan aniga Shamhaad Cali oo kamid ah hooyooyinka ku nool degmada Doolow qayb weyn ka qaadatay dhismaha dugsiga sare ee degmada Doolow iyo boostayaasha Axmed oo kamid ah gabdhaha qurba joogta ee degmada Doolow kana timid wadankaasi Canada qayb weyn ka qaadatay keenista agabka waxbarasho ay halkaasi ka hadashay. waxaan u mahadcelinayaa dadka isku dayay ama qurba joog ha ahaadeen ama gudaha joog ha ahaadeen waxbarashadii inay kiciyaan oo dadka uu wax barto haddaan wax la baran hada waxba lama aha waxa weeye qofka markuu wax barto uu wax tari karaa dalkiisa iyo dadkiisana wax noqon karaa laakiin qof jaahil ah waxba ma aha xoolaha dadka ay haystaan iyo qofka aan wax aqoon isku mid weeye ma sha Allah tabarakallah qurba joogtii qaran joogta dhulkaan ku dhalatay ama degan marka maxaan ku raadaya laga reebo waxa aad hadana noo sii gacan qabtay dad qaali ah ma sha Allah mahad gaar aan u celinayna dhamaanteen oo amran teamkeeda ah amran shaqada u xirtay oo maxaan ku raadaya reer Columbus jaariyada reer Columbus uniformki sanadka hore la keenay iyo waliba lacag kale oo iskuulka dhameystirkiisa ah iyo uniformka sanadkan yaalaba dadkaas naga qayb qaatay kaar qorshe ku sameeyeen anagu 100 ama 200 aan jeebkeena beejeegeena ka soo goynaa iskuulkan ku saacideeyay laakiin qorraxna uma aan istaagin maxaan ku raahday sheeg ugu dambeyn waxa munaasabada ka hadashay Amran Sheekh Axmed oo ah qurba joog u dhalatay degmada Doolow waxayna u mahad celisay dhammaantii ka qayb qaadatay caawinta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barato dugsiyada kala duwan ee barakacayaasha Kabaasa Qansaxle iyo degmada Doolow waxaan kaloo si gaar ah ugu mahad celinayaa saaxiibaday oo aniga markasta igu garab taagnaa si aan u suurtagelino iskuuladan in ay horay u dhaqaaqaan oo aan igu aaminay in ay lacago fundraising ah intay ii dhiibaan ay igu waliba appreciate gareeyaan shaqadan aan hayno reer Columbus Ohio iyo meelo kale Mareykanka kamid ah dad jooga ayaa aad ii support gareeyay saaxiibaday si gooni ah ayaan dhamaantiin idinku mahad celinayaa waxaan kaloo si gaar ah ugu mahad celinayaa maqaayadda Safari oo ku taalo Columbus Ohio oo ayakana markasta noo ogolaaday inaan isticmaalno parking lot-kooda iyo biyaha kubada si aan baabuur booliska koonfur galbeed Soomaaliya ayaa digniin adag u jeediyay dadka aado al-shabaab taliyaha booliska koonfur galbeed Cornel Mahdi Cabdiraxmaan oo warbaahinta la hadlay ayaa digniin adag u jeediyay dadka aado al-shabaab taliyaha oo arintaasi ka hadlayay waxa hadaladiisa kamid ahaa ra'yiga weyn oo la isugu yimid wuxuu ahaa dhowr qodobka koobaad in cadawga al-shabaab iyo cidii gacan saar la leba in laga qabto dalka gaar ahaan dadka inta isugu yimid deegaanka ay ku sugan yihiin meel kastaba noqoto inay ka qabtaan lala dagaalamo la iska dhiciyo laga hortago fikradooda qaldan waxna laga qabto qodobka koobaad kan waa la isku afgartay waa la isku raacay waana la isku waafaqay si dadban iyo si toos aba in la wada shaqeeyo oo cadawgan ummadda laga dulqaaday ayaa la go'aansaday qodobkaas waa qodobka labaad gaar ahaan waxaa loo taabtay dadkii ergooyinkii kuraastii 69 kursi oo koonfur galbeed laga doortay ergooyinkii iyo waxay u yeereen shabaab oo ay leeyihiin imaada ayagoo danaynaya inay yacni qaab kale ku dhacaan ummadda maxaa ka mid ah dadka laba ujeedday maartay meesha ka ifinayaan waa la idin cafinayaa ay leeyihiin waxba ma cafinayaan waxna ma cafin karaan waxay wataan inay dhaqaale ka gurtaan dadka
si ay dhaqaale u helaan inay lacag ka qaataan haddii kale ay ka qaadaan qori askariga ay qorteen ay u laayihiin macnaha inay qoriga ka qaadaan nin walba yidhaha hal qori iyo booshkiisa kan berrina asiga lagu dilo macnaha ra'yiga ay wataan waa kaas waan dareemi karnaa waana garanaynaa arrinka ayaga ah dadka oggolaaday dadna waa diideen waa loo yeeray hooyadiin wasaydheen waa diideen dadna waa oggolaadeen oo waa tageen kuwii oggolaaday waa shabaab go'aankeeda waa yani waa la soo saaraya horta in la soo qabqabtoo la xiro ka bacdin haddii la dilaayo iyo haddii la ganaaxayo iyo haddii gaal shari la geynayaba xukunkeeda codkaasi wuxuu ahaa taliyaha booliska koonfur galbeed korneel mahdi cabdiraxmaan weli dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa raadiyo guda codka gobolka gado muujada fm-ka dherarkeedu yahay 89.1 megahertz stuudiyahana koowaad aynu ku leenahay degmada dalow Soomaaliya haatana gobolka Hiiraan dagaal xoogan ayaa ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan warkaasi waxaynu ambaqaadayaa Abdullahi Maxamed Xamuud wararka ka imaanaya degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xubno ka tirsan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab ay xalay weerar xoogan ay ku qaadeen xarumo ciidanka oo ku yaala degmadaasi dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayaa waxa uu socday muddo ku dhow saacad sida dadka deegaanka ay u sheegeen Radio Hiiraan Weyn saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerarka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen waxa uu tilmaamay in Al-Shabaab ay gaarsiiyeen qasaaro ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa amisoonaya maanta howlgallo ku bilaaway degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ee xaafadda ay ka kooban tahay iyo deegaano kale ee hoos yimaado dawladda Qatar ayaa mashaariic ka hirgelinaysa Hiirshabeelle warkaasi waxaa mar kale inoo diyaariyay waryaheena Cabdinuur Cusmaan Cabdi madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa madaxtooyada Jowhar ku qaabilay wafti uu hogaaminayay safiirka dawladda Qatar u jooga Soomaaliya Danjire Xasan bin Xamza Asad Hashim labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay la xiriirto fulinta mashaariico horumarineed oo ay Qatar ka fulinayso Hiirshabeelle sida dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar oo maalmahan ugu soo aadan la bilaabi doono wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Hiirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim ayaa dhanka kala sheegay in wafdiga reer Qatar ay kormeer ku sameeyeen warshadii sokorta iyo beeraheedii waxayna ka wada hadleen sidii loo soo nooleyn lahaa sidoo kale waxay kormeer ku sameeyeen beerihii bariiska iyo goobihii la dhigi jiray dalagyada kala duwanaa oo ay Jowhar caanka ku ahayd wuxuuna wasiirku u sheegay inay ka faa'iideysan doonaan fursadaha hor yaallo kulanka waxa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen guddoonka baarlamaanka Hiirshabeelle Sheekh Cismaan Barre iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Hiirshabeelle dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa warka raadiyo Gado codka gobolka Gado muujada FM-ka dherarkeedu yahay 89.1 megahertz qaramada midoobe ayaa ka hadashay xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Dadaab ee wadanka Kenya mar kale waxaa warkaasi inoo soo diyaariyay Cabdullaahi Maxamed Xamuud hay'adda UNHCR xafiiskeeda Dadaab ayaa soo saartay warbixin ay uga hadlayso xaaladda qaxootiga Dadaab iyo tirada dadku halkaasi ku nool oo hoos u dhacday oo ay gaartay meeshii ugu hooseysay abid warbixin bilaah oo ka soo baxday xafiiska UNHCR Dadaab qaybtiisa saxaafadda iyo arrimaha ayaa lagu sheegay in tirada dadku aad u hooseyso hay'adda qaxootiga adduunka ayaa warbixinteedii ku sheegtay in laga soo bilaabo bishii December sanadkii 2014 ay Soomaaliya si iskood ah ugu laabteen qaxooti gaaraya 8368 qof barnaamijkaas oo ay fuliyeen dawladda Soomaaliya iyo Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in ay hoos u dhacday dhaqaalihii ay qaxootigu siin jireen deeq-bixiyaasha caalamka isla markaana ay hadda helayaan oo kaliya 30 qarashaadkii ay u baahnaayeen xerada qaxootiga ee Cambi Caws ayaa la xiray 30kii Maarso ee 2017 halka xerada Ifo 2 la xiray 31kii Maajo 2018 waxaa labaduba si rasmi ah loogu soo wareejiyay dawladda Kenya 20ka Juun 2019 hay'adda ayaan warbixinteeda ku soo xusin qaxootiga aan diiwaan gashnayn ee ku nool xerada Dadaab iyo waxyaabaha ugu qorshaysan iyadoo sheegtay in tirada qaxootiga ay marba marka ka dambayso sii yaraanayso dhegaystayaal haatana dibadda dad ka qayb galay mudaharaad ka dhacay caasimadda Moscow ee wadanka Ruushka ayaa la xiray booliska magaalada Moscow ayaa xiray in ka badan 1,000 qof oo ka qayb galay banaanbax dimuqraadiyadoon ah dadka la xiray ayaa ah
kuwii ugu badnaa ee sanadkan la xiro. Dadka ayaa waxay ka mudaharaadayeen in musharaxiinta mucaaradka laga reebo doorashooyinka dowladda hoose. Mucaaradkuna waxay sheegeen in looga reebay arrimo siyaasadeed. Qaar ka mid ah musharaxiinta loo diiday in ay ka qayb galaan doorashada dhici doonto 8 Sebtembar ayaa xabsiga la dhigay. Mas'uuliyiinta doorashada ayaa sheegay in 3 qof ay ku guuldareysteen inay heleen saxiixa ku filan si ay doorashada ugu istaagaan. Dadka banaanbaxa soo abaabulay ayaa cambaareeyay tallaabada lagu xiray dadka dimuqraadiga doonka ah. Dhegeystayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay war wixii daafaha caalamka naga soo gaaray. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa raadiyo Gada codka gobolka Gado. warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Nuurdiin Xasan Deeq. warka waxaa isku soo dubriday Maxamed Macalin Aadan. dhinaca farsamada waa Cabdullaahi Maxamed Xamuud. halkaad naga dhegeysanaysaana waa raadiyo Gada codka gobolka Gado. dhegeystayaal, cid allaale ciduu warkeena seego waxay dib ugu daalacan karaan barta Facebook aynu ku leenahay page-ka raadiyo Gado, ama adigoo markaasi raadinaya YouTube-ka ay ku qoran tahay raadiyo Gado. dhegeystayaal, waxaan idin leenahay bahda raadiyo Gado oo isku duuban sidaa iyo nabadgelyo.